mudanayaal waad mahadsantihiin guddoonkuna waa mahadsantahay dhegaysiga aad dhegaysateen runtii dee waad dhegaysanayseen annagu warbixintii wasiirada iyo dadka xukuumadda ah warkoodii baan halkaan ku sheegnay laakiin waxaan rabnaa inaan dul taabanno sanad ka hor maantoo kale saacaddan oo kale waxaan fadhinay meeshaan waxaan akhriyaynay wixii halkaan laga akhriyey wax ka qabsoomana ma leh haddaan dul istaago sidiisaba heshiis ama dastuur waa heshiis bulshadu waxay ku heshiiso waa dastuura dawladda waxay ku heshiiyaanna waa qaanuun waa heshiiska hadda ka socda boosaaso iyo garow waa soo dhawaynaynaa maalgashiga iyo mataqaanaa waxa dalka lagu soo kordhinayo laakiin waxa ay ku shaqaynayaan waa qodbasiro waxaa la yidhahdaa waxaan waadax ahayn oo aan dadku ogayn laakiin labada qof oo isqodbasiraystay ay ka dhaxayso waad ogtihiin marka dawlad dalkaaga ka xoog badan ay maal gashanayso isla markaana aysan haysan heshiis dawladda ay la gashay oo la akhriyay waxa ka imaan doona mustaqbalka dheer dhasheenna iyo dadkeenna wuu labadaba iftigaraynaya waxa kale oo xaqa qofka maalgashadaha inuu haysto sharci isaga difaaci doona haddii dawladdani maanta la gashay heshiis aan waadax ahayn oo caddayn oo aan dhex marin wasiirada iyo golaha baarlamaanka aan la keenin midda ka dambaysa maxay samayn doontaa waxaan ognahay heshiiskii boosaaso ee BNO dawladda hadda joogtaa markay timid waa eedaynaysa waxay ahayd waxaan laga fakerin maanta waxay soo gashay mid kale oo ka weyn kii kale heshiiskeediina ma hayno midda ka dambaysa maxay samayn doontaa mudanayaal waxa jira arrintaa iyada waxay dan u tahay dadka iyo dalka iyo deegaanka sanadkii hore waa codsannay xukuumaddu waxay noo sheegtay wax waraaqa inaanan hayn waraaqa af carabi ku qoran inuu meesha maraya inay arkeen ma fahamti laakiin dee ma haynay dheheen waa ka xishoonayaan in la magacaabo waxba kuma sheegi karo meelay ka yimaadeen iyo meelay ka soo degeen midna lama arko soomaalidu waxay ku mahmaadaa abkay doolli dilow dad noolma u daaha war kuway waaweynaa haddayba meesha ka baxeen kuwa yararkaa waxaad ogtihiin hay-adda iibka qaranka iyo qandaraas bixintu waxay ka mid tahay meelaha kobcinta dhaqaaluhu ka soo geli jirtay 4 wasaaradood baa laysan ka qaata wasaaradda hawlaha guud laysan bay bixisaa wasaaradda ganacsigu laysan bay bixisaa dawladda hoose laysan bay bixisaa tartamayaasha baa ka soo qaata dakhli hoosaad baa ka soo geli jiray dhammaanba waxaa la fariisiyey oo fariisan laga dhigay hay-adda shaqadeedii taas maxaa dhinaceeda kala socda waxaa socda in malaayiin cashuurtii dawladda habbixintii qandaraasada oo la waayay ay ku baxdo waxaad ogtihiin haddaad laamiga maraysaan laga bilaabo state bankiga hortiisa iyo kalis waxa baabuurland gurusara taagan wiilal yaryara oo laba xaaslayaala wata waagii hor habka iibka qaranka iyo qandaraas bixinta waa la baahin jiray ma shaqo tagaan baabuurta halkaasay ku dhaqaan hadduu 2 jiira gala tanag baa ka baxa tanagii meeshu marayana waa ogtihiin injo-ooyadu iyadaa iska wata wasaaraduhu wiilasha joogaa ama in adeerkood siista ama iyagaa baabuur iibsadee markhaati waa ka tihiin dadkaan iyo dalkaan in loo qareemaa la rabaa oo dadkaan masaakiinta oo guryaha ka soo toosaya waxa meesha ka baxay small businesskii habkii qandaraas bixintoo yararka ahaayo mataqaanaa qolka la dhisayay 2 qol dhisayay la xayeysiinayay meesha waa ka baxeen nin walba meeshuu haysta kii weynaa iyo kii u sarreeyey dee isagaa maamulanaya waxaa jira oo meesha jira waxaa la leeyahay waddooyin baa la dhisay war wadda la dhisay waxaa la yidhaha wadda la bilaabay waddadii lafa goray oo 10 madaxweyne oo iska dambeeyay daba dhigan lama dhisin halkan taleex iyo degmooyin waxaynu ku dhow meesha la yidhaahdo iyo boocame waddooyin lagama dhisin waxaa la dayactiray waddooyinkii horoo jiray oo wasiyaad baraka tegey see loo dayactiray maxaase galay faa'iidada maxay keeneen dhibaato maxay keeneen faa'iido waa keenoo dee waddooyinkii waa la dayactiray lacag baa gashay laakiin lacagtu xagee ka timid waxaad ogtihiin ganacsatada dalka inta loo yeeray in la yidhi lacag ha la saaro lacagta la saaray ganacsatada waxay saareen dadkii sicir bararku xagee ka yimid hooyada yaanyada fadhida inay qadeen wada xagee ka timid guryaha qaarkood taban laan inaysan soo adeegan xagee ka timid waxay ka timid lacagtan ganacsatadii baa la saaray ganacsatadii la saaray iyaguna dadkii bay sii saareen dhigshiil baa isugu soo baxay meeshii midanayaal waxaa la rabaa inaynu anagu warbixinta intaa waxaan ugu daray
نقول بهذا الكسمات بكل مرة يعني dadka meeshan looga yeerayo xukuumadda hadda waa loo yeerayaa leeyahay si dhaba in loola xisaabtamo anigu waxaan ka meesha ka qirayaa waxa la qabtay waxa ugu weyn in la ilaaliyo waa dastuurka dalka ilaaliyihiisuna waa madaxweynuhu dastuurka hadduu ilaaliyo dadka inta ka hoose waa ilaalinayaan heshiisyada caalamiga in la galo waa qodob dastuuriya in baarlamaanka la horkeeno waa qodob dastuuriya golaha wasiirada in la horkeeno waa qodob dastuuriya 3 sano iyo bar dagaal aan ku soo jirnay oo aan kula jirnay mataqaanaa xamar hadda halkaa waxa ka cadaatay wasaaraduhu inay yiraahdeen annagu heshiisyadii xamar lagu gali jiray wasaaradihii federaalka wax noo soo mari jireen xiriir lama lihin maxaa keenay dawladii baan xiriir lahayn midaan hadda dhalatay oo maanta yababka waxaan ku codsanayaa in si sax loola shaqeeyo iyaduna si sax u shaqeyso sababtoo dagaal baan 3 sano galay dagaal kale aan gali karin lama arko dadkaan iyo dalkaanna in loo daneeyay rabaan annaguna kuraastaan waxaan ugu fadhinaa haddii 3 sano iyo hortii banaynaguna aan isfiirin jirnay awoodaha gacmaheenu aysan shaqaynayn arinta artay gacmaha ha shaqeeyeen awooduna ha shaqeeyeen dadka dalkana u qariyeen wabillahi tawfiiq madana iga raalahaada haddii aan wax ku daray oo dibsateen waxa jiraan bayaaminayeen